بسم الله الرحمن الرحيم قدومي وما سنتاي xildhibaanada sharafta leh howlwadeennada ciidamada amniga ee sugaya dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan maanta halkan u joogno oo ajendaha lagu sheegay oo aan ka doodeyno horta ajenda maaha xeroosaadkay ku qoran tahay in hay-adda ama sharciga la horkeenayo haddii uusan lahayn budget inaanba la keeni karinba marka haddayba qoran tahay wixii oo xeroosaadkeena ay ku qoran tahay wax looga doodo maba jirtaba in meesha inta la yimaado waqti nala ka lumiyo maba jirtaba xildhibaanadana hadda waa hadleen majoritygooda codkoodiina hadda waa rikoor garaysan yahay waa la diiday sharcigan marka waxaan jeclaan lahaa in meesha lagu joojiyo hindisi sharciyeed aan budgetkiisa wadan inaan laga wada hadlayn oo u dhammaaday wax kale aan ka hadalno oo nacfi nool annaga iyo ummadda soomaaliyeed marka taas laga soo tago ajendaha taas intaasaan ku dhaafaya kooramka guddoomiye sida muuqata labadii sano lasoo dhaafay ilaa ay haddeertaan waxaa meeshan ka cad inaad 147 146 145 144 xildhibaan keliya aada guddoomiye u tahay intaas ka badan hal maalin maysan imaanin baarlamaankan dad waxaa jira sidii loo soo doortay aan maalin imaanin dad waxaa jira 6 bilood mar yimaada dad waxaan ognahay waxbarasho iska aaday oo dalka dibaddiisa ku maqan oo xitaa maalin aan soo xaadirin guddoomiyow taxi dayariska dadka canshuurahooda masaakiinta reer muqdisho oo maalin walba canshuurta dulsaarka lagu darayo in la cuno oo la qaato haddana laga maqnaado dalkan ansax maaha waxaa lagaa rabaa noo sheeg haddii aad 146 147 xildhibaan aada guddoomiye u tahay haddii kale inta kaloo maqan soo geli hadday soo geli waayaanna waa in tallaab laga qaadaa waa in lacagta laga joojiyaa waa in dadkii ay matalayeen la gaarsiiyaa oo la yidhahdo dadkan shaqadii ma hayaan soo bedela guddoomiye shaqo inaa qabataa la rabaa moogiye inay dadka qaar iska maqnaadaan qaarna ay maalin walba soo xaadiraan horta xaq maaha meeshaan waxyaabo badanaa laga shaqaynayaa waxaan u malaynaa hadda xitaa xanta suuqa ku jirta waxaa la sheegaya in qaar idinka aad tiraadeen ha imaanina idinkoo mooshinna iyo wax ka baqaaya runtii sax maaha baarlamaanka waa la wada leeyahay dadka ha yimaadaan ha dhiibtaan ajendahooda hana la soo xaadiro taas intaasaan ku dhaafaa waxaan iloobay oo rabaa inaan ka tacsiyeeyo dadkii ummaddii soomaaliyeed ee 72 saacadood gudahood ku geeriyooday gobolka banaadir qaraxyadii iyo argagixisadii xabsiga gashay iyo meeshii kafeega oo dhallinyarada ay ku fiirsanayeen cayaarihii finalka ahaa aada uga xunnahay waana u tacsiyeynaynaa ilaahay qabrigooda ha waasiciyo ummaddii ay ka geeriyoodeen soomaaliyeed eeladii qaraabadiina samir iyo imaan allah ka siiyo wax la fiirsan kara maaha ummad soomaaliyeeda maalin walba baaba'aysa dhiigooda daadanaya waxaan rabnaa inay waxaas taagaan in isla xisaabtan u yimaado in hay-adaha amniga lala xisaabtamo bor maalin walba ummaddii waa dhammaanaysa hal qof oo shaqada laga qaadayna male hal qof oo la canaantay male hal qof oo la soo qabtay ma jiro wax la fiirsan kara maaha guddiga amniga iyo difaaca waxaa laga rabaa inay shaqadooda qabsadaan inay keenaan taliyaasha inay keenaan dadka mas-uuliyadda leh baarlamaanka soo hor fariisiyaan oo lala xisaabtamo maanta kadib lama sii fiirsan karo dhiigga ummadda soomaaliyeed ee daadanaya weliba waxaad moodaa hadda inay xariggii soo goosteenoo badanaa maysan samayn jirin 72 saac gudahood inay weeraro isxige ay sameeyaan ay dad laayaan guddoomiyow iyo guddiga difaaca iyo amniga waxaa la rabaa inaad shaqadiina qabsataan ummadda soomaaliyeedna aada u naxdaan waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo lacagahan dulsaarka oo 5% lagu sheegay ee wasaaradda maaliyadda ay dul saartay ganacsatada iyo ummadda soomaaliyeed oo EBC-ga iyo wax isugu dara xildhibaan raalli ahaaw arrintaas baarlamaanka dhan waa qabaa waa ka hadlaynaa waqtiyadan ka hadlaynaa ajendaha ka hadal hadda guddoomiyow ilaaso ajendaha hadli doonaa ajendaha ka hadal ajendaha waa hoosaadkan u hoggaansan xildhibaan ajendaha ka hadal waxaan u malaynaa ajendaha inaan kuu sheegay ajendaha sax maba ahaba inuu sii socdo waa la sheegay awalna qaladaa naloo horkeenay haddana xildhibaanada badankooda waa doodeen waxayna sheegeen inaysan asaxayn marka in meeshaas lagu joojiyata saacaddan waa kaa dhammaatay warkan waa dhammaysatay waa dhammaatay waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo qaraxii lagu laayay xalay dad masaakiine oo cayaaro iska daawanayay intii dhimata Allah u naxariisto
intii kalena caafimaad degdeg ah Allah siiyo waxa laga doodaya hay-adahan laga ag abuuray wasaaradihii sharciga ahay wax walba horta xildhibaanada sharafta leh waxay ku qoran yihiin dastuurkan lagu heshiiyey wixii kale oo shaqaana ma aha complicated waxay ku qoran tahay xeeroosaadka waa haddii la rabo si lilaahi in loo shaqeeyo maalin walba mudane guddoomiye aayadaha qur-aanka ayaa waxaa lagu furaa baarlamaankan laakiin anigu ma arko aayadahaas qur-aanka oo kelmadii ilaahay ah in halkan looga dhaqmo anigu ma arko dastuurkaanna aan ku ballanane laguma dhaqmo hay-adahan la samaynayo oo aan sharciyada aan lahayn aanana budget lahayn in maalin walba wasaaradihii laga ag furo ayadoo lagu raadinayo budget World Bank iyo IMF iyo ay ku raadinayaan ma aha wax qabto shacabka Soomaaliyeed waxaa kaloo la yaab ah in shaqaalihii rayidka ahay ee ka diiwaan gashnay ee dalkan xaalado adag ku soo shaqeeyay in shaqooyinkoodii laga kacsanayo waxaa tusaale ah oo aan haya aniga dad aan matalo oo hadda kiiskoodu taagan yahay oo wasiiro ay ka shaqaynayaan inay ka kacsadaan booskii ay ku fadhiyeen ay geystaan dad shaqaale ah waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan sheego shalay u dambaysay militariga 3 hoggaan oo ka mid ah hoggaamaha oo dadkaas aniga aan si qaas u matalo in hal maalin shaqooyinkoodii laga qaaday anu waxaan u arkaa beegsi ay sameynayso xukuumaddan ay sameynayso waxaan rabaa sidoo kaleeto xildhibaano badan oo waxa jiro hoos u hadlayo dawladda markay qaldan tahay waa in la saxaa in laga xishoodo ma aha shaqada annaga aan leenahay waa isla xisaabtan hadda ka hor waxaa la yidhi waraabow ma naxda hal dhahay waraabow wuxuu ku jawaabay ma naxuu dhahay weligayba ma arag wax ii naxo anu markaana leynaxaynin naxi maayo xukuumadda waa in lala xisaabtamaa wasiiradu waxay gaareen inay dhahaan xildhibaanadu way jilicsan yihiin hays adkeeyaan taasna waxaa waa jijilo anagana laga arkay war waa maxay qof dhan oo shaqaalaha rayidka ka tirsan in shaqadiisii laga kacsanayo maalin walba oo qofna la hebel lagu bedelo waa shaqaalihii diidjira ajandadan ku dhex jiraa stop qaada saaxib marka waxaa idiin sheegayaa ugu dambayn waa xukuumadda in halkan la keeno lala xisaabtamo waa in la isla xisaabtamoba ma aha in dawladda la mucaaradayo xildhibaanadu waa runtoodii ajandaha ka hadal ma ajandahan ka hadlaya anigu mudane guddoomiye xukuumadda waa in lala xisaabtamaa waa in loo yeeraa waa sharcigaa dhigaya dastuurkaana dhigayo xildhibaankii hoos u hadlayo anaa kor u hadlayo waxa socda wax loo dulqaadan kara ma aha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu